naag maseersan oo ninkoodii oo Jordan jooga doonaysa in lambarkiisa qof Soomaaliya uu saqaban ayaa shacabkii Soomaaliyeed maanta maskaxda ka qabsatay dadkayga oo goorma wax fahmaysa حبيبي يري والله بالله وانا كعقل بدس كلها لمبركاس يا لقبن تلفونkaas aan idin soo diray walaalayaal lambarkaas waa laga shakiyaa qabanina qof kasta yuusan qabanin lambarkaas waa lambar qatar ah malaha waa maseersan tahay ninkeeda inaan telefoonka laga qabanay rabtaa markaas waxay tiri Cabdulla xarunta Marwa waa albaabka farxadda lamaanaha fadhi ma yaalheetii alla waa gaar dadaalna waa mahuraane xarunta Marwa waxa aad ka helaysaa daweyn baaritaan iyo aqoon la isku haleyn karo dhaqaatiirtuna waa Soomaali kaana tageen oo mar walba kula jooga dalka dadkayga yaaba wax bartay ajnabi xaan ka jira si aad u hesho ubadkii aad u baahnayd insha Allah hadda la xiriir Marwa Fertility Center oo ku taala degmada Tomnaad waa idin salaamay waa walaashin Xabiiba Yari anuu tomnaadkaas ama fahmi waayo tomnaadku ma gruuba magaciisa tomnaad waa idin salaam kulay dad ila hadlaysa waa isku yaqaanaan aniga codka la ii soo diray kan Xabiiba Yari waa tomnaad waa idin salaamay waa walaashin Xabiiba Yari codkaas aniga la ii soo diray shacabka Soomaaliyeed maanta maskaxdooda Xabiibo si fudud ku adeegsatay codkeedu meel walba ka daareen telefoon walba lagu diray ila dhageysta bar Soomaaliya idinkuna aan wada dhageysana saaxiibaya tobnaad waa idin salaamay gabdhaheena wiilasheena meel kasta adduunyada aad ku sugan tihiin dalka iyo dibaddaba waa idin salaamay salaan sharaf salaan qaali ah waa walaashin Xabiiba Yari waxaa saaka la ii soo sheegay Afrika Soomaaliya تلفونkaas aan idin soo diray walaalayaal lambarkaas waa laga shakiyaa qabanina qof kasta yuusan qabanin lambarkaas waa lambar qatar ah hadda gobolka gada maanta 5 qof baa hadda saacad koor nafta ka baxday dadku dhiig siidana haba markuu dhaarayo qofka maskaxda qarx reegadow warbixinna soo siiya marqaati alla idin qabsaday kulaha tomnaad waa idin salaamay waa walaashin Xabiiba Yari lambarkaas la ii soo diray ha isku qabanina Afrika waxa weey dad badan wacay gadashana ku dhimatay ina shacabka Soomaaliyeed la soo wadaagtaan la idin rabo shirkadaha isgaarsiinta si ay uga hortagaan reegadow hadda ogtihiin dad dhacdada u dhintay shacabka Soomaaliyeed waa idin ka sugayaan inaad soo bandhigtaan bal shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta Soomaaliyeed algu dacaayadaha wiiran oo Soomaaliyeed aqligiina ha shaqeeyo war dadkayga wax faham war waxaad di aragtaan hubiya Xabiiba Yari qof caadi ma ahan ninka qabow hadda ay daawanayso waniyo isku badnaaniyo qoftaana qof caalami waaye shacabka Soomaaliyeed maanta maskaxda ka qabsatay codkeedu meel walba ka daareen telefoon walba lagu diray Xabiiba qof cajiiba waaye niyo digtoono Xabiiba hadii mar kale maskaxdeeda toojiso wax kale la yaabay waxa weey soo bandhigi doonta lambarkaas aan qabanay qof kasta oo wadanka joogana maxaa ku leeyahay qofka weyn oo saaka aan wacay wuxuu ku dhahay 3 jeer buu lambarkaan soo wacay lambar la yaqaanana ma aha meel ka tirsan yahay lama yaqaan nookaada Xabiibo inta ka badan anigu ma ku sii dhageysan kale kulaha nuclear ku xirana iska ilaasho war nuclear adaa ku xirtay walaalay macaani adaa ku xirtay nuclear Xabiiba Yari bishaaro waxaan kuugu bishaareynayaa application-ka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka